أفرنين وهوية بفردية ومدحونين الجمهورية حسن شيخ محمود أبقالة علي قوضلاوي وأبقالة غور وهبر قدر هوية نيكل هذا مدالي وأبقالة هوية أفرتنين هويها إلا وضحنين دارود iyo ninkii raxweyn iyo nin kale oo isaguna ku jiro oo leeyahay asana buu watalayaan oo saalax la yiraahdo horta inta sameesha lagu fadhiyaa khaatumo warka ay soo saartay waa war biyo kama dhibcaana waxa weeye wax aanan laga talagelin oo aan go'aankeeda waxba ku yeelan hada ogaada go'aankeeda ayna waxba ku lahayn war nooma taal bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Abbas Madani weeye muuqaalkan sii shargaree meedal ka tur waxaan idin wadaagayaa Muqdisho ayaan caawid ka warbixinayaa shirkii madasha wada tashiga qaranka ka socday Muqdisho shirkaas oo fashil ku dhow in uu fashilmo maxaa keenay fashilka maxaa keenay in la ismaan dhaafo arintaas si toos ah idin ka warbixinaya sidoo kale warka ay soo saartay SSC Khaatumo ee ku aadan arinta shirka iyo go'aanada ka soo bixi doona qodobkaas waa qodob labada qodob baan carabaabi doona fadlan waxaan ka codsanay like-ta isaar oo share garee oo subscribe si oo meel ka waa degdeg weeye xilligii loogu talagalay barnaamijyada waxaan ka soo daahay way war baan idinku maqnaa intaas waa intaas Muqdisho maalmaha waxaa ka socday shirkii madasha wada tashiga oo muddo soo jiitameeyay shirkaasi wixii loo gaaray shalay galinka hore wuxuu galay mugdi buu galay waxaa horta shirka ka maqan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada SSC Khaatumo iyo Puntland Abdiqaadir Axmed aw Ali Firdhiye iyo Saciid Cabdullaahi Dani labadii wiil ee harti ee Puntland iyo Khaatumo kala hogaaminayay baa shirka ka maqan harti hadda dhulka uu degan yahay waa garan kartaa masaafada Soomaaliya marka la fiiriyo boqolkiiba wuxuu ka noqonayaa adigu 35 buu ka noqonayaa waa qabiilka harti la yiraahdo inta kale oo dhan bay Soomaalidu kala qaybsanaysaa meesha labadii wiil ee harti ka maqan yihiin dowlad goboleedyada kala hogaaminayay Khaatumo iyo Puntland ayaa waxa la leeyahay waxa lagu go'aaminayaa masiirkii doorashooyinka Soomaaliya laakiin beesha daarood waxaa fadhiya oo matalaya laba nin oo ilma adeera Axmed Islaam Axmed Madoowe iyo ninkii la oran jiray Prime Ministerkii Xamse Cabdi Barre Prime Ministerku dowladda Soomaaliyeed xukuumaddu hogaaminaya Axmed Madoowe dowlad goboleedka Jubbaland ayuu hogaaminaya yaa kala meesha fadhiya Afrnin oo hawiya fadhiya oo madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud Abgaala Ali Guudlaawe oo Abgaala qoor oo habar gidir hawiya ninka la yiraahdo Madaale oo Abgaalo hawiya afartanin hawiyaha ila wadahanin daarood iyo ninkii raxweyn iyo nin kale oo isaguna ku jiro oo leeyahay asana buu watalayaan oo saalax la yiraahdo horta inta sameesha lagu fadhiyaa reerka daarood ee majority-ga Soomaaliya ka ah labada nin baa ka fadhina xukuumadii buu hogaaminaya laakiin Axmed Madoowe baa wax daarood loo oran karo afkooda ku hadli kara Axmed Madoowe shirkii marka waa adkaaday waxaa la isla soo qaaday muddo kordhin extension madaxweyne Xasan wuxuu rabaa in ugu yaraan hal sano loo kordhiyo dowlad goboleedyada bisha June ee soo socota 2025 kana doorashooyin golaha deegaanka la galo wixii ka dambeeyana loo soo diyaar gareeyo doorashooyin dadweyne oo dowlad goboleedyada doorasho qof iyo cod ay ku soo baxaan markaan waa idin soo sheeka dhaafay ragga dowlad goboleedyadu badankood waxay markore naawilayeen oo ay doonayeen in doorasho dadban qabsadaan xildhibaanada boobaan isla ku soo baxaan Jubbaland mooyaane inta kale way ku adag tahay inay doorashooyinka boobaan Axmed Madoowe laakiin cid u dhawaan karta ma jirto Jubbaland awood buu ku haystaa wiilka ogaadeen reer Cabdulle meeshaas waa u xiranta cid u dhawaan karta ma jirto dowlad Soomaaliyeed iyo cid u dhawaan karta ma jirto ninkaas waa landheero way subaa marka Axmed Madoowe waa ka soo horjeestay arrintii heshiiskii muddo karinta wuxuu sheegay warniyo Axmed sheegay ku doorashada nin walba doorashada qabso hadda ka hor baynu shirnay June baheed sanadkan ku jirno in doorasho qabsano way suurtagal weeyday qodob labaad wada meeshan ka soo oo qodobka ilaa caawa shirki ka dhaqaaqi waayay waxa weeye wuxuu war waxaynu go'aaminayno waa masiir umadeed weey Soomaali baynu ka hadlanaa doorashooyin baad ka hadlasaan halkee doorasho laga qabanaya war afartan hawiyaad tihiin kana war raxweyn
kana waa isaaq prime ministerkuna waa anigu laba nin oo isku jifaabanahay darooda ogaadeyna reerkii dhammaay harti oo laba dowlad goboleedana meesha ma joogaan xageenu ka hadlayna nagu xageenu doorashada go'aamin karaa suuragal ma aha meel khaatumay Puntland ka maqan tahay in xalka Soomaaliya laga hadlo in arrimo masiiriga aan uga hadalno hadda ka hor baan dastuur mulmuqray wixii waa suurtoobo weeday adeerow anigu madin ma yihiin nin daaro Ismaaciil aan ahay hawiyow sidaas u wataan baan nagu soo wadanaa hay haddaanu siyaasiyiinta harti gaar ahaan kuwa Puntland aanu kala aragti duwanahay ma haynaanu isnaclay waa in la keenay Sayid Cabdullaahi Dani iyo SSC Khaatumo haddaynu doonayno Soomaali ka hadallo weey halkaas u istaagay odaygi Axmed Madow waxa kelmadda markuu afkiisa soo mariyay horta meesha dhow isbedeshay afkiiba xumaaday waxa la warday hadda hore waa nala socotay arrin badan oo go'aan bay uga soo gaadhay maxaa say waxa u jira Axmed Salaamo adiga xitaa waxa weey doorashadaada waxa cid fal gareynaysa ma jirto waxa ka hadlay maayigano anigu waxaan saxaxo in wax iga soo laabtaan hore baan u eeday oo maxaa weey go'aanadii aan hore u gaadhnay maxaa fulay intaas oo qodob soo bandhigay tuun bay sanadkan doorasho qof cod la qabto haye yaa hor istaagay yaa geed socodka dhaqaajin waayay suuragal ma aha adduunkuna dalkuna 4.5 way ma dalka deegaanada hawiye kala doorasho ka dhacaysa hadiiba saa loo fiiriyo waxa maanta xora oo doorasho qof cod ka dhacday ama ay ka dhici kartaba waa arrin daarood weey marka laga rabo inta yar ishay xogaa ee Jubaland xogaa yar waxa weey nimankii ay haystaan majority-goodu waa xor weey hay xagee marka rabayaan degeysaan horta shirkalkaas maraya uu taagmay aawa oo idil hadlayo waxa fila Soomaaliya ku shirsan madaxweynihii Soomaaliya prime ministerkii iyo Axmed Madow shirkiina wuxuu dhaqaaqlay nimankaas ogaadeen gaar ahaan madaxweyne Islaam Axmed Madow xaalku wuxuu taagan yahay qeyr buu taagan qeyr intaas horta waa xog weey Axmed Madow waxaan qabaa waajibkiisu guto wali waxa inuu intaas mar hore inuu hadii ku miiqaamka SSC Khaatumo iyo Puntland baynu ka hadlayeen meesha tolka lagu gowracayo oo deegaanada lagu gowracayo oo ehelka lagu gowracayo oo matalaada shacbiga lagu gowracayo war lama yeelo hay Axmed Madow waa la sugi doonaa waxba dacaaw amaani maayo waayo shughul ala waajibaadkiisu guto haddaanu aniga inta hadalkaas uu san golaha iga oran karin maabar buu iga celinaya aniga waa mayo goorta ninkaas amaanta leeyahay degdeg waa marka go'aankiisa iyo aragtidiisu ay hirgasho waa goorma waa marka dowlad goboleedyada Puntland ay Khaatumo ay ka qayb galaan shirka meesha masiirka Soomaaliya lagu go'aaminayna qayb ka noqdaan hay laakiin wali farba ay taagan midna ogaadeen baan u dirayaa siyaasiyiinta ogaadeen Axmed Madow iyo Ibrahim Xamsi maanta matalaadii Soomaaliya ee daaro Ismaaciil idinka fadhiya yeeso noqon shimiri mar bay dab qaaday markiina dubuulkeedii u gubtay yeeso noqon Soomaaliya dhibay deegis daaro dhibay deegay haddaad yeeshaan waxa xukuumad xasan wato haddaad yeeshaan waxa siyaasiyiinta hawiye wataan waa la idin fiirinayaa waa la idin eegayaa waxaad ka yeeshaan ba waqtigeeda suganaa insha Allah hay warhooy aysan idin ka hoosmari chance baa haysataan ogaadeen maanta nasiib baad leediin daaro idinka maanta matala prime minister kan xukuumaddan idinka nagu matala waxa uu hadii la kuurayay state-ka kaliya maanta joogana waa Jubaland waa idinka maanta badii dabkeed haya war maxaad fali doontaan waqtiga sheegi doona meel gowrici doontaan oo waxaad leedihiin sida hawiyuhu qabaan siyaasiyiintooda loo joojin maayo daaroodka kale loo joojin maayo meel oran doontaan siyaasiyiinta waxa weey hadii la kuuray waxaan la hadlayaa ogaadeen mise waxaad leedihiin miiska inoo dhiga war meel daarood ku kala maqan yahay adeero waxa weey go'aan ka gaari mayno noomana talbad oran doontaan waqtiga iyo waayaha ayaa sheegi doona intaas waa intaas weey madaxweyne Firdhiye maanta uu hadlay wuxuu soo saaray war saxaafadeed gaar ahaan dowladda Khaatumo ay soo saartay waxay cambaaraysay shirkaasi oo ay sheegtay waxa weey inaanay qayb ka qayb galin wixii ka soo baxana aan Khaatumo qusayn imika waxa leeyahay Soomaa doorashooyin baa la galaya Soomaa doorasho xaq lagu qabanaya ninkii tuuga durbaanka xaday maxaa leeyahay durbaankii xaday
meeshaad ku tumi lahayd baa la iska rabaa soo ma war go-aankan la soo saarayo Soomaaliya loo saarayo soo ma waxa leeyahay waa Soomaali soo ma haye kan in la yaalka ee aan deegaanka istay karin ee waxa weeye hadii la kooro aan aragaaba tay karin ee waxa weeye aan burco tay karin shirku fadhiya oo waa ina waa saarax jaama oo waa nin isaaq oo doora oo habariyay soo garxagsa masiir Soomaaliyeed baa laga hadlayaa aqal xumada fiiriye hawiye siyaasiyiinta hawiye masiir Soomaaliyeed baa laga hadlayaa ninka dalkiisa deegaankiisa xorta yahay ee ama Garowe jooga ama Laascaanood jooga ee khaatumada Puntland arinta waxa weeye doorashooyinka haba laga weydiin maayo hadda aqalga hadda waxa weeye waxa xagee ka hirgalayaan wax soconaya ma khaatumo warka ay soo saartay waa war biya kama dhibcaana war anagu dalkayga waan haysan hadaan reer khaatumannahay Puntland dooro dhaweys maamushayadu waxa weeye waa buda gaar u tuma khaatumo isada af Soomaaliya dalkeeda waa haysata cashuuraheeda way qaada wayna ismaamushaa waxa weeye wax aanan laga talagelin oo aan go'aankeeda waxba ku yeelan hada ogaada go'aankeeda ayna waxba ku lahayn war nooma taal war cidnagu ma tashay ma jirto war qeyd kama nihin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta China Swain buu haystaa oo Soomaali ku mideen karo China saxaw waa inuu Soomaali mideeyo war doorasho qof iyo coda cidii dan ma jirto Soomaali u dhabe doota laakiin wadadii doorasho qof iyo cod lagu qaban lahaa madaxweynuhu wadadeed ma haya waa ma yahay sababta waxa weeye inta nin isaaqo in la yaala oo Soomaali wax ka weydiinayo oo miiskii Soomaaliya looga hadli lahaana u dhax fadhiyo war ninka dalkiisa xorka yahay dalkiisa maamulo uu martida ka yahay shirka madasha waa tashiga qaranka war wadadeedii ma hayo hay wuxuu socdo haduu wadada hayo wuxuu socdo adafteeni gidaarka madax ku soo dhufan doona waxa la isku imaan doonaa hadii la kula teendada afisiyooni hadaanu hadda sidoo ku socdo wax ka bedelin marka xaaladu waxa karanta shirkii Axmed Madoobe iyo Xamse iyo Xasan Sheekh fila Soomaaliya ka socda maxaa ka soo bixi doona siyaasiyiintaasi waxay ogaadeen waxay goorici doonaan matalaadii Daaro Ismaaciil oo ay si dhamaystiran goorici doonaan isoo waxa noqon doona kuwa la dhageysto oo go'aankoodu uu meel mar noqdo waqtiga iyo waayaha ayaa sheegi doona waraxii xiriir la lahow gaarsiiye war ha ku ceebowina ay hadii kale waxa la ogaadeen marba daaradu mataleeno markiina hawiyeen hoos geeyeen ceeb iyo dacaayad ka xun ma jirto intaas aan ku soo gabagabeynaya muuqaalkan si shar garay meel dheer ka tur